waxaan qabaa dhowr arrimood arrinta ka jawaabidda abaaraha sidii la soo sheegay weeye wax badan ayay ka qabteen oo ilaa heer degmo waxay isku dayeen inay shaqaale mobilize gareeyeen xagga geeyeen sidoo kale fariimihii khalkhaldanaa sidii loo baahnaa bay isku dayeen inay uga hortagaan ay uga jawaabaan marka arrimaha waan bogaadinayaa arrimo fiican weeye waxa kale oon xafiisku inuu sii xoojiyo ay tahay mustaqbalkan inuu wax ka hagaajiyo waxa weeye kow sidii la soo sheegay tiirarka xafiiska ugu muhiimsan in uu soo jeedsho xafiisku hadda iminka soft skillkii baa iska badnaa oo tababaro la siiyey iyo inta badan u badnayn laakiin tiirar kala duwan oo muhiim ah oo deegaankeenna weliba bulshadeenna xagga saxaafadda sidii loogu horumarin lahaa wax badan ka bedelaya ayaa u qorshaysnaa xafiiska marka taa inay wax ka qabtaan waa laga maarmaan mustaqbalka inay taa wax ka saxaan waa muhiim weeye waxaa kaloo oon u soo jeedinaya SRTV xidhiidhkay la leeyihiin waa run wakaaladda SRTV waxay hoos tagtaa baarlamaanka sidoo kale waxay u soo jeedin doontaa waxqabadka sanadkan baarlamaanka iyo u soo jeedin iyo qorshaha sanadka 2015 laakiin board ahaan maadaama xafiisku maamulo waxyaabihii ugu muhiimsan ay wada shaqayntu siday ahayd inay soo jeediyaan bay ahayd xafiisku inay soo jeediyaan qaabka at least waxyaabihii boordiga ugu muhiimsanaa ee lagu qabtay inay iyagu soo jeediyaan bay ahayd arrinta kale waxyaabaha ugu muhiimsan tusaalehaan xagga media monitoringiga war-saxaafado badan baa jira media kala duwan ay la shaqeeyaan baa jira qaabka ay u abaabulayaan ay u shaqaysiinayaan ay dadkeenna waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku wacyigelinayaan in la soo jeediyay ahayd xagga media monitoringiga maxaa la monitor gareeyey imse media si khaldan maxaan ku dhahdaa wax u tabinayay imse la monitor gareeyey waxyaabaha qaabka inaan u soo jeedinay ahayd arrimaha kale wararka si guud xafiisku warar uu sameeyaa barnaamij uu sameeyaa documentary uu sameeyaa marka in la soo jeediyay ahayd intaa war oo ku saabsan horumarka adeegga asaaska arrimaha bulshada maamulka suuban waxyaabaha qaabka inaan u soo jeedina bay ahayd oo dadka macnaha fikirkooda wax ka bedeli kara ajendaha inaan seed gareen imse ajendan macnaha anagu iminka inta badan waad arkaysaan xafiiska communicationku wuxuu kaga duwan yahay SRTV xagga wararka markaanu eegno warar qorshaysan inay sameeyaan weeye xafiiska SRTV xafiiska communicationku qorshuu qaadan waxyaabaha baa ka maqan buis odhani dadka saabay u fahansan yihiin baa lays odhan kabacdi qorshahaan baa loo qaadani sidii xog dhammaystiran dadkeenna loo siin lahaa loona wajihi lahaa qaabkay maxaan ku dhahdaay bulshadu ay dan u tahay marka waxyaabaha wararka nooca ah inuu qorshaysnaado xafiisku inta badan qorshahaan u qaato weeye ugu dambeyn annagu targetkeennu inuu maxay noqdo weeye xafiis communicationku macal SRTV-gu maxaan ku dhahdaay board ahaan iyagu waa maamulo targetkeennu clear inuu noo noqdo weeye deegaankeenna iyo wadanadan jaarka nahay inta badan xogta aanu siinayno waayo dadka af soomaaliga fahmi karaya targetkeennu inuu noqdaa loo baahan yahay barnaamijyadeenu samaynayna sidoo kale annagoo ka duulayna baahida iyo dadku waxay rabaan inaanu samayno inta badan waa laga maarmaan barnaamijka aanu rabno baahida annagoo ka duulayna in la sameeyo waa laga maarmaan marka targetkeennu inuu sidaa noqdo waa muhiim waxyaabaha kalena kulleen waxyaabihii u qabsoomin tusaale ahaan FMT-yaashii lasoo sheegay community radio-yaashii lasoo sheegay inta badan sidii loo baahna kuwa shaqeeya
wax yaryar way ka maqan yihiin marka xafiisku koobantaan inuu qaato waxyaabahan wax ka bedelo waa muhiim oo sidii la soo sheegay la isku dayo adeegii loogu talagalay inay dadka siiyaan marka taana kulleen xafiisku inuu wax iska saxo laga maarmaan weeye